بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناسنا ما باخيارتا هودا نغلا خيوداي meel ka soo daafa dunida ka joogtaan oo muuqaalkayga iyo waliba maqalkayga idin ka soo gaarayo waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal barnaamij gaar ah oo aanu ku soo qaadan doono afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Axmed Saleebaan Duxul oo shir jireed ku qabtay xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo door oo ay ka mid yihiin hadallo iyo waliba dhaliilo kala duwan oo mas'uuliyiin mucaaradka iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa mucaaradku ay u soo jeediyeen xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo afayeenku hadaba waxa uu si kulul ugu jawaabay guud ahaanba mas'uuliyiintaasi mucaaradka kuwaas oo ku tilmaamay hadalladaasi dhaliisha waxba kama jiraan isla markaana talooyin iyo waliba hadallo uu ku dhiirigelinaya shacabka Soomaaliland shirkaasi jaraa'id uu qabtay uu kaga hadlay barnaamijkan ayaa daawaday arrimahaasi aanu ku eegi doona dhamaantiinba ku soo dhawaada waxaan idinku yeedhay shir jaraa'id oo ku saabsan baan kaga hadlayo bariyahan dambe xaaladaha iyo hadallada jirjira inaan ku cadeeyo xaqiiqadu siday tahay iyo wax walba siday u jiraan xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxay dhowraysaa marka hore ilaalinaysaa sharafta qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay difaacdo midhihii dadaal iyo natiijadii ka soo baxday isku tashigii reer Soomaaliland ay ku soo gaareen halka maanta aan taaganahay hase ahaatee mar walba iyo marxalad kastaba oo la marayo lama waayo kuwa balanka fayl ah oo sahmiyaal u ah amba gacan saar la leh cadow kasta oo shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin waxaas xaqiiqa xukuumadda Soomaaliland ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo in gacantana ay ugu shaqeynayso horumarinta nabadda iyo shacabka Soomaaliland siday u gaari lahayn himilada ay leeyihiin gacanta kalena inay ku tilmaami doonto inta xumaanta aan jirin boomboonina see wada ee loo adeegsanayo waxyeelada qaranka siday u waxyeeleyn lahayn loo adeegsanayo ee shaydaanku u cumaamaday waxaan mar walba aan ka raali gelinaynaa shacabka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan hadallada diilqaafka ah ee dhagooga ku soo dhacaya ee kuwa cayda ku seexda kuna soo toosa ay maalin walba la taagan yihiin dib waxaan ugu noqonayaa waxyaabihii u dambeeyay dhacdooyinkii u dambeeyay ee aan ka soo gudubnay waxyaabihii dhagaa shacabka ku soo dhacayay maalmihii u dambeeyay gudoomiyaha golaha wakiiladu iyo xubnaha kooban ee la-olankii waxay eedayn u soo jeedinayeen xukuumadda taasoo ku wajahan xukuumaddu faragelinaya kuwaasoo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore waxaanu cadeynaynaa golaha wakiilada iyo xukuumaddu inay yihiin laba hay-adood oo kala madax bannaan laba hay-adood waan isfaragelin karin laba hay-adood oo kaliya ay ka dhaxayso wada shaqeyn ay ka dhaxayso inay shacabka Soomaaliland baa waa waxay constitution-ka qarankan sida uu dhigayo ayaa sidaas ay kala madax bannaan yihiin mar walba waxay ku andacoodaan xukuumaddu doorashada dib u dhigaysa waxaan doonayaa in la ka cadeeyo saddex calaamadood oo mid walba ay cadeynayso xukuumaddu sida ay ugu diyaar garowday sida ay diyaarka ugu tahay mar walba in doorasho dalkan ay ka dhacdo waqtiga loogu talagalay kama hadlayo gudoomiyaha Ciro oo gudoomiyaha golaha wakiilada oo isagu shantii la doortay shacabka ay kalsoonida siiyeen intuu dhaafay shantii kala maraya oo haddana tilmaamaya cid in doorashada ay diidan tahay saddexda calaamadaas waxa weeye waxa madaxweynuhu hore labada golo ugu ballan qaaday in aanu doonayn in doorashadu maalin loogu daro in doorashadu waqtigeega ay dhacdo madaxweynuhu golayaasha qaranka ayuu hore ugu cadeeyay waxa madaxweynuhu qoraal u gudbiyay isagoo ku cadeeyay bixiyaasha isagoo ugu cadeeyay in doorashadii ay diyaar naga tahay wixii xagga xukuumadda ku xilnaana xukuumadda ay diyaarisay waa dogsoontiin oo dhaqaale ahaan amba awood ahaan dalkeenu iskuma fila doorashooyinka ka dhacay oo dhan inuu daboolo laakiin si dimuqraadiyadda loo kubciyo bulshada caalamku maanta way isku xidhan tahay taageeradooda iyo waxistarkooguna
ومد عالم كودن ما تلوجيا إن ما تلايس تاجرو عدي وحورك سنقب سنس عدي هربان وضنا إن لقوا تاجرو واجوي مركز شعب الصومال الناس اللي لوكسوني وحلقة تاجرة دور شوي مدحونه وحوي عدي قرب حياشة إن حكومة وأي ديار وتايوحي حقيقة خدنا أي ديار سي وحال ودوكسوي هاي لما انبع ميزانية دي لنا حكومة كل حنية دور شوي كسوس عضايا لما كون شنية طمانكا صحافة دونه يوقتاي شعب كريسمان لأنه ويجيلو ولا دياري oo golaha wasiiradu way ansixiyeen miisaaniyadaasi ciiraa inuu soo dhigo ansixiyo ka wareegayo muddo bil iyo dheeraad ku dhoobay miisaaniyadaasi ama bil iyo dheeraad ay miisaaniyadaas waxay horta la golaha wakiilada waxa la diyaariyay xeerkii diiwaangelinta madaniga iyo codbixiyaasha oo loo gudbiyay golaha wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada uu gudbiyay si waajibkooda ay uga gutaan waxa la wadaogsoon yahay murankii carooy xisbiyada mucaaradku ay ka keeneen qodobo kamida waxaanu madaxweynuhu u saaray guddi saddex xisbi iyo xukuumadda ka kooban waxay isla garteen in qodobo wax laga bedelo waana la aqbalay xukuumaddu in wax laga bedelo waxaanu madaxweynuhu u gudbiyay golaha wakiilada waxa la filayay in wax dambe lama filayn in xeerkaasi golaha wakiilada markii loo gudbiyay ay ansixiyeen dood ka dhiibteen afkaar ay ka dhiibteen waxay ku dareen ay ku dareen waxay ku bedelayeen ka bedelayeen ay ka bedeleen markii codkii iyo kalsoonidii golaha uu helay golahu codka u taagay in wax laga bedelo ayaan daraayeen waa dhacdo taariikhi ah oo markii uu horeysay ka dhacday Soomaaliland waligeed kama dhicin in xeer la ansixiyay in wax laga bedelo xeerarka waxa loo sameeyaa in qaranka iyo kuwa dhuuxeena ku jira xeerarkaasi inay anfacaan oo hadhow ay ku dhaqmaan waxayaan daraa xeerarka maanta in shaar xisbiga uu leeyahay wadani in golaha wakiilada iyo gudoomiyuhu doonayo inuu ku saleeyo halkii la doonayo in xeerarka qaranka wixii anfacaya qaranka loo dhigo isagu wuxuu ka fikirayaa maadaama gudoomiye xisbi mucaarada uu yahay maadaama uu yahay gudoomiye doorasho u taagan in xeer kastaaba uu leekaysiiyo xisbigiisa wadani in leekaysiiyo aad baan uga xunnahay xukuumaddu waxay gudbisay xubnihii komishanka doorashooyinka qaranka dhammaantood way gudbisay golaha wakiilada loo gudbiyay balu fiirsada waa waxyaabihii ku xidhnaa doorashada oo dhan hadday miisaaniyadii tahay hadday komishankii tahay hadday waxyaabihii lagu dhaqmeeyay oo kala tahay sida xeerarka oo kale xukuumaddu way u gudbisay markii ay dhammaanba dhammaystirtay wixii laga sugayay haatan haddana la bilaabay qorshe kale iyo wax kale iyo ujeeddo kale oo ka baxsan runtii wixii la doonayay in lagu dhaqaaqo golaha wakiiladu uu qabto waxaa muuqata in gudoomiyaha uu maamuli kari waayay 28 xildhibaan oo golaha wakiilada uu maamuli kari waayo aqlabiyadii golahaas ay ka soo horjeedo waxa xaqiiqa ninka 28 xildhibaan oo golaha wakiilada maamuli kari waayay waxa shacabku is weydiinayaan sidee buu u maamuli karaa qaranka uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo tijaabay oo ahay 28 siduu ugu filaado ayuunbuu qaranka ugu filaan lahaa 28 buu maamuli kari waayay sidee bay u maamuli karayaan qaranka ka baaxadda weyn qaranka qorshaha u baahan qaranka meelmarinta u baahan qaranka himilo dheer inuu gaaro u baahan siduu maamuli karayo wax la yaaba waxa kale oo aan jecelahay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ayaa maalmihii u dambeeyay hadalla qadafa ay warbaahinta la soo fadhiyeen war u fiirsada ilaa baan idinku dhaariyay shacabka Soomaaliland waxa weydiinaya ninka Saciid Cumar Roble la yiraahdo oo ka tirsan golaha wakiilada waliba muddo dheerna ka tirsanaa waxa uu yiri dunida ay noo soo gurmada waxaanu adduunyada ugu baaqana oo beesha caalamka ugu baaqana buu noo soo gurmada ujeedada iyo macnaha dhadhanka eragaas uu leeyahay waa mid cadaan waxa weeye annaga iyo Soomaaliya isku mid baan noo soo gurmada qaranna ma jiro way macnaheedu noo soo gurmada
وبيش عالم كي نوسو قرمدا معنى وحوي عيدا من نوسو ديرا أو صوماليا مدانو كوا ماني والبلوسو قرمانيا مدانو وي معنى حقيقي وحكلو وضاني حزبك وضاني وبرابي المواطنين تفريز سوماليلاند ودل كان أكرا شاكتو إن دادك وكاش شاكتو قدومية كعيينك قلاها وكيلة قدومية كعيينك قلاها وكيلة أيوني بشير تكارا ليا وشالي تولى عن باري هذا الكيسي وحو أدقنا إنو كاشيكتو قرانكا وحنو كرالي قريننا ومد الرسول وحنو كرالي قريننا قدوميها كوادي قلاها وكيلة وأنو ليناهي تاسي مقبطو شعبك الرئيس سوماليلاند وداني كلا سمتيا شعبك السوماليلاند هل علامات بيليهين علامات دقرانكي ودليهين دالك وي ودليهين dadka way u simayeen cadaaladda way u simayeen lama kala le sida wadani u wadana shacabka Soomaaliland ee kala qaybinta wadana shacabkani waa sumid Bashiir Tukaale in kooban baan oranaya gaarigu markuu istaanka ninku dhigto ee uu doonayo in laga kiraysto ninkaali gaarigaas meesha uu u baxayo waa ninkii laha gaarigu meesha uu baxayo kama go'aan gaari karo waxa ka go'aan gaari kara qofka baabuurka kiraysanaya ee wax ku ranaya baa ka go'aan gaari karo oran karaan barbaraygi aba booramaygi Bashiir waa gaari istaan taagan oo hadba ninkii kiraysta weey waxa la yaab leh nin la yiraahdo Cali Areey oo muddo dheer baanan arag oo golaha wakiilada ka tirsan ayaa shalay isna hadlay Cali Areey waxay ugu dambeysay isagoo halkan madaxtooyada yimid oo induu ka cabanayo indhaha laga caawiyay madaxtooyaduna isagoo xildhibaankii golaha wakiilada ah wixii ay ku talasay taakuladii ay u samaysay indii baa loo soo qalay biriiqii u horeeyay arkayna caybu madaxtooyada la soo fadhiistay waxa uu yiri shalay 100 jeer siyaad baraa ka wanaagsanaa buu Silaayo miyaan wahayn kii la dagaalamay ee hormoodka ka ahaa xorriyadii dalkan kii siyaad barri ku hor yimid miyaan wahayn kii ummadan maalin walba naftooda hantidooda iyo maalkooda kii la rogay waxay boqolaalka sanadood soo dhaqayeen kii rogay miyaan wahayn markuu maanta leeyahay Cali Areey siyaad barraa ka wanaagsanaa macnaha iyo dhanka ay sameeyaan maxay tahay karaamadii ummaddu caaya karaamadii ummadda shacabka reer Soomaaliland ayuu caaya aad iyo aad baan uga xunahay ninka la yiraahdo Cali Areey isaga waxa ugu dambeysay siyaad barru uu shaqeeyo la shaqeeyo baa ugu dambeysay marka wuxuu dadkan u geystay sidoo u hadlayay ma oga kii ka riday kii u hiiriyay kii xoreeyay kii hogaamiyay kii nabadii ka soo qayb qaatay ka maanta horumarka ku hogaaminaya waa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo inuu yiraahdo siyaad barraa ka wanaagsan waa su'aal shacabka u taala waxa uu yiri wagaaban ayaa la shaqeeyay buu cid uu jeedo waa iska caday waxa leeyahay maalin intay kuwaasi qabtaan ee qaranka u qabtaan weliga calo horena baad qaban dibna u qaban miis cali guri isaga wax waran maayo inta fayooba wad hadal see fududaatay baan la hadlayaa cali guri isaga waxba waran maayo guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan marka hore waa ku baraarujinayna nabadda iyo ilaalinteeda waxaanu ku baraarujinayna sida awalba ay heeganka ugu hayeen in qarannimadan wax kasta oo soo waajaha in ay ka digtoonaadaan oo ay ilaaliyaan waxa la guriga madaxweyne ku-xigeenka lagu shiraa guriga madaxweyne ku-xigeenku horta waa hoggaanka xisbiga kulmiye weey haddii gurigiisa lagu shiri waayo ma banaanka lagu shiri amba guriga hortiisa lagu shiri guriga lagu shirayo danta qaranka loo shirayay sidiina looma shirayo cadaawad iyo ku xumayn cid looma shirayee qaranka wanaajintiisa loo shirayo guud ahaanba intaas ayaan ku soo koobaya waxaan sad jecelahay
in wixii su'aalaa aad weydiisa su-aasha ugu horeysa waxaa jirta in laydinku eedeynayo inaad iibiseen xaruntii akhriska buugaagta ee Gandhi Library oo ahayd xarunta keliya ee ay lahayd dhalinyarada reer Somaliland ama dadka had iyo jeer tacliinta ku fog tan maxaad kaga jawaabaysaa adeer waxaan ogsoonahay sida xukuumadani waxbarashada iyo heerka ay marinayso iyo sida uga go'an tahay library wax lagu akhristo xukuumaddu ay iibisay ma jiro library ma iibisay mid bay soo kordhisaa waxbarashadu inay wax noo tarasay ogsoon tahay waxbarashadu inay nakaabasay og tahay sidaas darteed waxbarashada way kaabtaaye ma dhibaatayso akhyaarta qiimaynta qadarinta iyo xishmada badan ee hawada nagala xidhiidhay daawadayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarkaanu ku eeganay shirkaasi jirayd ee afayeenka madaxtooyada Soomaaliland uu ugu jawaabay hadallada ka soo yeeray mas'uuliyiinta kala duwan ee mucaaradka waa sawir qaadistii Cabdilaahi Cali Suudi habeyntii soo dabareedkii barnaamijkan Ismaaciil Maxamed Cakule iyo Axmed Saki Daar Xasan oo dhamaantiiba ku dhaafaya barnaamijkan mid la mid ah intaanu ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته